heesta afqalaad aqoontu miya ayaa si aad waxay u qabsatay barta TikTok daayarta Soomaaliyeedna waxay iskaga soo duubayeen si weyn dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si weyn aaladan u isticmaalo balse heesaha qaar iyagoon macnahooda garanaynin dhadhansanayna kaliya erayada guud markaa ayay iska soo duubayeen waxaa si gaar ah barta TikTok u qabsaday erayada ah ama kaag iyo yaab argagax aboowa macaanow ii sheeg maxaa ku daran aboowa macaanow erayadan ayaa kuwa sida gaarka ah ay iskaga duubayeen iyagoo dhadhansanaya erayada jacayl ee guud markaa macaansanayna luuqda sida talantaaliga u dhacayso ee ay ku luuqeynayaan fanaaniinta kale ah Xaliima Khaliif Magool iyo Xasan Diiriye haddaba abwaanka curiye heesta mar uu ka sheekeynay qisada heestan afqalaad aqoontu miya waxa uu yiri 1965 abwaanku oo fadhiya xafiiska ayaa waxa loo keenay warqad ku socotay isaga oo daaranayd inuu saxiixo si ay mushaarkoodii u horreeyay u helaan qolyihii la isku oran jiray isku darka shaqaalaha warqadii loo keenay oo ku qornayd farta Talyaaniga hoosteedana looga xardhay farta Ingiriisiga laguna rogay ayaa waxa ay ka dhigtay inuu ka caroodo arrinkani waxa uu ka carooday shalay raggii aynu ka diidnay inay ina guumeystaan inaan wali iyaga aqoomaysanahay oo sanka aan uga tolanahay afkooda iyo fartooda inaan wali sidaas uun isticmaalayno on dulmanayaal u nahay isticmaalka fartooda iyo ku hadalkooda waa isagoo inagu leh maxaa la inoo oran waaye qiraal lacag bixin asagoo oo macnaynayo ereygii af Talyaaniga ku qoray warqadda dusha uga xardhanaa maxaa ugu qori weydeen oo wali noo daba wadaan shalay raggii halgankii aan xornimo u dirirka la galay wali aad la dhacsan tihiin suugaantii baaxadda weyneed ee uu kula hadlayay mutacalimiin ismoodka koodiina dayacay mid kalena aysan waxba ka haynin oo ku daanshoonaya waliba waa halkii noogu luuqeynaysay fanaanadii weyneed ee Faadumo Qaasim Hilowle tudciyada hore ee heesteeda ay ka mid ahaayeen dalxiis kuuguma iman dalkaygo meel aan kugu doorsayaya mii dunidaba ku taal dalkaygo si lacayna ayuu isaguna ula hadlay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee nool qarniga 20aad inta uu fartiisa kala shaqeeyay si loo soo saaro bulsho faneed oo lahaanshiyo ku dareenta hodantinimada afkooda kuna ciilbixi karta marka ay wax cindiga geliyaan erayada heestani abwaanku sababta uu curiyay midaas ayay ahayd isaga oo ka xanaaqsan in luuqad kale wali aan isticmaalayna inagoo leh af hodan ah suugaan ahaan iyo waliba hadal caadi ahaanba heesta gudaheeda waxa uu ku leeyahay ma ogtahay dib looma abuuro dadkee ma ogtahay aqoonta amaah la iskuma siiyee ma ogtahay aqoonta abaal la iskuma saartee ma ogtahay aqoonta miyaa la iibsan karaa ma ogtahay aqoonta miyaa la soo ergadaa waa intuu qofba ee beglshay ayay nala tahay annaga ayay Xaliima Khaliif Magool leedahay abwaanku hal igana ma uusan hakranin hagarlay ayaanu uu noogu hiiriyay dhan waliba deeqsinimada qofeed iyo nafhornimada macaan ayaa ku ogolaysiinaysa Cali Sugulle dun Carbeed haddii aynu niraahno aan ka sheekayno falanqayno furfurno suugaantii Sacuudoon hubaal ifka ayaa nagu gadoomayo ayay dadka qaar aaminsan yihiinba heestan dadka badan ay iska soo duubayaan erayo jacayl ahaan ay iskaga soo duubayaan oo erayaha guud markaa qaar marka aad cidla ka maqasho waxaad filaysaa ama niyadaada ku soo dhacayo inay yihiin beeriye jacayl balse sidaas ma aha qaybtan dhalinyaradu iska soo duubayaan ma aha erayo jacayl laakiin weedha heesta ka horeyso iyo qaybta ka dambaysa ayay ku xiran tahay abwaan Cali Sugulle marka aan qeexno qofnimadiisa dunta laga tafeermay iyo shakhsiyadiisa hodanka ahay waxa ay ka dhigtay inuu ka socnaado jiilkii isaga la loodka ahaa dadnimo wanaaga jacaylka baaxadda leh uu qaba dalkiisa iyo dadkiisa ayaa ka dhigay heer lama jeerto suugaantii Sacuudoon ee kala jaadka ah sida wadaniyada isirsafaynta ilaalinta sawraca dawladnimada kala dambeynta gobonnimada ummadnimada iyo qabweynta aadmiga sidoo kale waxa uu sare u qaaday dhaqankeena soo banoo caada sare ka lelmiyay isagoo oo jirid uga dhigayo afmaalnimadiisa deeqda ah qaaradda madow ayuu inaga soo dhax saaray si la inooga dhax garto uumiyaha tirada badan ee qaaradan Afrika ee nool ku nool abwaan Cali Sugulle oo kamid ahaa raggii hormuudka u ahaa markii la bilaabay walaalaha Hargeyso iyo markii ugu horeysay ee la bilaabay kooxda Waabari oo odayaashii albaabkeeda furid lahaankeeda lahaa waxa uu leeyahay hees boqon magaratayba ah heesihiisii ku jiray kuwaasi oo lagu furi jiray rubayadaha Waabari dadweynaha hor yimidow halka naga taalaan horaan u ogeynay halkan waxaad u timaadeen aan hagarle inba caaw naga heleysaan
waxyaabo fara badan oo hagar lahayn baynu cawdu sugulla ka helay suugaantiisa waxa uu leeyahay suugaan tira beel ah oo haddii aan damacno inaan halkan ku furfurno aysan suuragal noqonaynin